sheekh su'aashan kale waxay leedahay wiil iyo gabar ayaa isguursaday gabadhu caruur ay hore u dhashay wiilka isagana sidoo kale caruur ayuu hore u dhalay iyaguna caruur ayay isku dhaleen laakiin su'aashada waxay tahay sheekh labada caruur ee ninka iyo naagta ay hore u soo kala dhaleen haddii ay iska helaan ma isguursan karaan diiniyan yani waxa waaye nin caruur hore u soo dhalay gabadhan caruur hore u soo dhashay ninkaas caruurta wata iyo gabadhan caruurta isguursaday caruur ay iyaga soo dhaleen caruur isku dhaleen laakiin mid walba caruur gooni u wata oo ninka qof kale u soo dhalay aad iyo aad marka caruurta goonida ah isguursan karaan caruurta goonida wax nasab hadda ka dhaxeeyo ama isu diiday in isguursadaan ma jirto qofka wuxuu maxramkan qaarna wuxuu ku yimaadaa xurmada ku timaadaa nasab uu ku yimaadaa dhiig uu ku yimaadaa dadka dhiig ku yimaada waxaa ka mid ah hooyada iyo wixii ka hooseeyo hooyo ayeeyada kale dhinacaas weyn asfalad aabo kale iyo wixii ku horay awoo eedadeeda waxay dhasho kale taas oo kale haba sareeyo iimaanayso waxaa kale xurmada keena waxa way habaryarta dadka oo close oo kugu dhow oo kale habaryarta eedada oo kale waxaa kale keenayo oo temporary oo jirin soo galay waxa waaye ninka wuxuu guursaday gabar lahu guursaday gabadhaas oo ay qabto oo gabadheeda xaaskiisa ay dhashay hadduu xaaskiisa u galo uma banaana inuu guursado meeshaas xaraam aga noqonaysa waxa kale oo gadaalka iimaanay oo nasabka keenay waxa waaye gabadha hadduu qabiltu ninkii yiraahdo hooyadeeda xaraam ay ka noqonaysaa gabadhaas aabiis ninkaas aabiis waxay ka noqonaysaa xaraam ay ka noqonaysaa so waxaas laakiin waxna permanent waaye waxna temporary waaye gabadha habaryarteeda ninka laba qof gabadhii habaryarteeda ma kulmi karo gabadhii eedadeeda ma kulmi karo temporary xurma waaye gabadha hadda arrinteeda u nimaado marka ma banaan tahay nin gabadhan ilmahay wadatay iyo ninkan ilmuhu watay in isguursan hadii iska hala ma banaan tahay waa banaanta wax isu diiday ma lana waxba isu ma dhiigiina ma ahan nasabkiina ma ahan waa isguursan karaan wallahu a'lam sheekh gabar Soomaaliyeed